السلام عليكم وعن صاحبada sharafta leh maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo ama aan idin la wadaago barnaamij ku saabsan guurka ajaanibta saaxiibayaal barnaamijkan ujeedkiisu ma aha inaan doonayo inaan dad ku xadgudbo ama inaan dad xagxagto laakiin waxaan doonayaa inaan fikirkeyga ka dhiibto arrin ku saabsan guurka ajaanibta saaxiibayaal sidaan wada ognahayba waayihii dambe ama xitaa aan dhehe casrigan dambe waxa soo badanaya guurka Soomaalida ay guursanayaan ajaanibta kale haddii ay ahaan lahaayeen dumarka Soomaaliyeed iyo weliba haddii ay ahaan lahaayeenba ragga Soomaaliyeed saaxiibayaal waxaa laga yaabaa inay jiraan Soomaali badan oo rag iyo dumar isugu jira isla markaana qaab saaxiibtinimo oo maxaa la yiraahdaa boyfriend ahaan iyo girlfriend ahaan kula jooga dad kale oo ajaanib ah taas runtii sharciga wuxuu ka qabo waan wada garanaynaa mana aha midda hadda aan doonayo inaan ka hadlo laakiin hadda midda aan doonayo inaan ka hadlo ayaa waxay tahay guurka dhaxmara Soomaalida iyo ajaanibta kale saaxiibayaal intaanan barnaamijka horay u sii gudagelin ayaa waxaan jeclaystay marka hore bal inaan idin la wadaago muuqaalka gabar Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa guursatay nin ajnabi ah isla markaana barta TikTok soo gelisa muuqaaladooda waxaan rabaa inaan idin la wadaago muuqaalkaas iyo bal dadka Soomaaliyeed sida ay uga falceliyeen kadibna fikirkeyga iyo bal sida aan wax uga dhihi lahaa aan ka dhaho saaxiibayaal sidaad arkaysaan gabadhan Soomaaliyeed ayaa waxa ay barteeda TikTok ku soo gudbisaa muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo la mid ah bal aan isla aragno dadka iyo fikradaha ay ka qabaan arrintan saaxiibayaal waa kuwaas fikradaha dadka ugu badan ay ka qabaan arrinta noocan ah runtii waa ay jiraan dad fikradahaas kuwa ka duwan qaba isla markaana isku bogaadinaya maxaa la yiraahdaa lamaanahan runtii sabankan dambe ama casriyadan dambe aad ayay u soo badanayaan Soomaalida raacaysa ajaanibta kale haddii ay ahaan lahaayeen rag iyo haddii ay ahaan lahaayeen dumarba haba ugu sii badnaadaane dhanka dumarka waa aniga fikirkayga saaxiibayaal ma rabo barnaamijka inaan aad u sii dheereeyo ugu dambeyn waxaan rabaa bal inaan fikirkayga ku soo gabagabeeyo arrintan aan ka qabo saaxiibayaal sida aan barnaamijkan bilowgiisa ku sheegayba arrintu haddii ay tahay boyfriend iyo girlfriend runtii waa arrin mamnuuc ah oo xaraam ah ajnabi walaa Soomaali midka uu doonaba ha ahaadee laakiin arrintu haddii ay tahay guur ayaan rabaa bal si faahfaahsan inaan fikirkeyga uga dhiibto saaxiibayaal sidaan wada ognahayba ama shareecada ku xusanba gabadha muslimadda ah iyo wiilka muslimka ah waa ay isguursan karaan waa ayna maxaa la yiraahdaa bannaan tahay inay isguursadaan meel alla iyo meesha ay doonaanba ha ka kala yimaadaane caddaan iyo madow nooca ay doonaanba ha kala ahaadaane waa ay isguursan karaan waa haddii ay yihiin laba ruux oo muslimiin ah saaxiibayaal taas waan wada ognahay inay isguursan karaan labada ruux ee ajnabiga kala ah waxaa la yiraahdaa ama laba wadan ka soo kala jeeda haddii ay ka midaysan yihiin diinta islaamka laakiin su'aashu waxay tahay maslaxadda labada ruux ma ku jirtaa inay isguursadaan haddii ay ka soo kala jeedaan laba wadan taas ayayna tahay fikradda ay dadka isku khilaafsan yihiin isla markaana qofba si uu ka aaminsan yahay saaxiibayaal
dadka qaar ayaa laga yaabaa inay u fahmaan in aan doonayo inaan xaaraantinimeeyo wax ilaah uu xalaaleeyey oo ah in qofka kale oo muslimka ah ay bannaan tahay inaad guursato runtii taas ujeedkaygu ma aha laakiin hal mid xasuuso oo ah in maxaa la yidhahdaa ilaah uu kugu waajib yeelay soon waa tusaale ahaan soonkaas ilaah wuxuu rukhsad kuu siiyey haddii aan awoodin ama aad xanuunsan tahay inaad baajin karto islamarkaana maxaa la yidhahdaa ama aad maxaa la yidhahdaa waxyaabo kale iska bixin karto oo sadaqooyin ah haddii aad hadhu awoodana aad dib u soo qallayn karto marka wixii waajibka ahaa ayuu ilaah sidaas rukhsad kugu siiyey balka waran wax lagu yiri waa xalaal waad samayn kartaa haddaad maxaa la yidhahdaa doontana ma samayn kartid haddii aad markaas aad ka baaqsato waxaan ula jeedaa aniga ahaan ma qabo fikirka ah in laba ruux oo kala ajnabi ah ama kala dhaqan ama kala bulsho ah ay isguursadaan maxaa la yidhahdaa sababtuna hadhow waxay tahay saamaynta bulshada ay ku yeelanayso oo labadan ruuxba ku qasbi karta in markaas dhibaatooyin badan ay la kulmaan saaxiib yaal halkaas ayaan rabaa barnaamijkan koobnaa inaan ku soo gabagabeeyo waana ku mahadsantahay haddii aad daawatay barnaamijkan sidoo kale haddii aad ku aragtay waxyaabo khaladaad ah oo dhankayga ah qaybta commentiga waa uu furan yahay waadna uga falcelin kartaa sidoo kale haddii aad hayso fikrado ka duwan kuwa halkan aan ku soo gudbiyey oo aad qabto sidoo kale qaybta commentiga waa ay furan tahay waadna nagula wadaagi kartaa waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan